waan ku salaamay saaxiib. Si dhab ah ayaan u garanayaa dareenka macaan ee ay leedahay in ugu dambeynta aad hesho qofkii qalbigaaga uu raadinayay ee ku habboonaa. Qof kuu noqda saaxiib marka aad u baahato saaxiib. Qof kuu noqda garab iyo gaashaan marka aad u baahato cid iskaa garab istaagta. Kuu noqda bakoorad marka aad u baahato waxaad ku tiirsato. Qof aad agtiisa ku dareenta ammaan buuxo aadan hore u bardhaminin. Saaxiib, ma naqaano qiimaha dhabta ah ee waxa aynu u jeelannahay ilaa aynu helno qof aanu marna tuhun kaa gelin inuu yahay abaalmarinta cibrigii dheeraha aad soo qaadatay gebagabadiisa. Qof mugdhow u noqda wax kastoo aad hore u soo weyday. Dadka qaar ayaa kugu imanaya sidii inay yihiin dhambaal cudur daarasho ah oo ay noloshu kaaga raadigelinayso wax kastoo ay hore kugu soo samaysay. Balse haddana saaxiib, waan dareemi karaa sida ay u xanuunka badan tahay in qofkaasi uu qofkaagi noqon waayaa, iyadana uuna kastoo jidhkaaga uu dhankiisa aadayo. Garaac kastoo wadnahaagu uu sameeyaana uu isaga ku aadan yahay. Atom kasta oo hawo ah oo sanbabkaaga galaana uu isaga raadinayo. Intaasoo dhan kadibna aad ogaatay inaadan sinaba qofkaas u heli karayn maadaama uu jiro qofkaaga dheereeyey, oo aad ogaato qofka soo dibdhacay inuu mar walba safka gadaal ka geliya si kastoo uu isugu dayay inuu soo hormaro, iyo inuu yahay cidda ugu horreysa ee laga kaaftoomayo. Aad ayay u xanuun badan tahay inaad boos ku yeelato qof qalbigiisa laakiin aadan ku yeelanin noloshiisa.